Golaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dalbaday wasiirka ciyaaraha dhalinyarada ee Soomaaliya Maxamed Bare si ay su'aalo ugu weydiiyaan. Waxaan halkan ku soo lifaaqnay warqad soo jeedin oo ay soo saareen 20 xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka. Waxa ayna doonayaan in su'aalo ay markaasi weydiiyaan oo soo jeedin ah taasoo loo yeeray wasiirka. Haddaba mudane wasiir, si waafaqsan qodobka 69aad ee 2 xarafkiisa A ee dastuurka gumeel gaarka iyo qodobka 53aad xarafkiisa 1 ee xeer hoosaadka golaha, waxa uu kugu wargelinayaa inaad markaasi kulanka guud ee golaha si aad ugu imaato su'aalo lagu weydiiyo tartanka ciyaaraha ee ku saabsanay dalka Jeenaha ay ugu qayb gashay gabadha lagu magacaabo Nasra Abuukar Cali. Si waafaqsan qodobka 63aad ee xeer hoosaadka golaha ee shacabka, kulankan waxa uu ku horweydiin doonaa su'aalo markaasi ku aadan adigana aad ugu jawaabi doontid mid si toos ah goobta uu markaasi ka dhacayo xarunta Golaha Shacabka ee Villa Hargeysa. Taariikhduna ay tahay Axad 13 bisha 8 2023. Wasiirka ayaa horey waxa uu markaasi aad oo dhibaatooyin badan ka sheeganayay xiriirada kala duwan, iyagoo oo markaasi ku eedeynayay in faragelin weyn oo ku hayay wasiirka. Sidoo kale wasiirka ayaa hadda waxa uu ku dhagan yahay xiriirka ciyaaraha fudud, kaasoo oo markaasi shaqo dhawaan ka joojiyay iyagoo aan wax sifa sharci ah aan u marin shaqo ka joojinta uu ku sameeyay. Waxayna guddiga kala duwan ciyaaraha qaybta ciyaaraha Olombikada ay markaasi iyagana ay soo jeediyeen ku raaceen shaqo joojintaas, laakiin aysan ahayn mid sharci loo maray shaqo ka joojinta. Xiriirka ciyaaraha fudud ayaana iska fogeeyay arrinta lagu soo eedeeyay, kuwaas oo ay ku sheegeen inaysan waxba ay shaqo ku lahayn ciyaaraha laga qayb galay tartanka Jeenaha.